السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دhowaad ardayda dhammaantiin waa mustaqbal Brevet Academy ama mustaqbal academy oo markaasiit insha Allah geekasin gudbi doono warqad ciwaanshigeeda ay unfulfilled promise wayna habatay warqadan insha Allah taariikhda markiyada ahayd 28 biliseed 2024 waa warqad markaasiit ka saabsan hadii wal yarkoon dulmar markaasiit jacayl macnaha qisi jacayl taasiit iyo markaasiit ka gabagabawtiisa markaasiit xun ama kala murugo leh waayahay in a quiet town way bahaaytay magaalo degan oo isku yar Zahra and Samir Zahri iyo Samir met way ku kulmeen iska baradeen high school dugsi sare iska baradeen their friendship blossoming waxyadii saaxiibtinimadii intu way bay isbedelay profound love jacayl and wing macna jacayl qoto dheer in isbedelay that city felt lagu dareemay invincible to wili jabo doona wili jiro doonta they shared way ku wadaageen dreams riyooyin ku wadaageen under the stars xidigyada riyooyin ku wadaageen whispered secrets sirooyin oo markaas ku shug whispered waa ku shug ama kala hadalada hoos dhindhikow secrets waa markaas aytee waa sirooyin oo ku shug waa may ku wadaageen in the holies of the hills godadka markaas buuro hoostiyo ku wadaageen ana promised wayna ballanka qaadeen to conquer intiin wajaha doonaan the world adduunyada together as wada jir aan guulayso doonaan but laakiinse as college markii jaamacadii approach deedaha dhawaatay life nololaya took them way ban shalgaadayooga ama shaljeetay on different paths wadooyin shalduun maana jidid shalduun nololaya shalgaadiyad Zahra chased way baraasitay ama kala dugsadaasay weydiisidaasay at dreams riyooyin shoo markaasii hay farshaxanka wayna ku raasitay in a pastoral city magaalo camarin maadaama magaaladii ku noolayeen isku yaraaytay while Samirna stayed behind the rogi to care Susan Daryl for his ailing father awshay oo xanuunsanay ama jirnay months bilooyinki turned way bay isbedeleen into years sanada filled with taasiti oo ka qaadeen ama la ka qaaday ama ku buuheen Mr. Calls wicitaaneen isku jawaaban liska dhigin sidoon isku qabadaan and the unfulfilled promises iyo ballame lanfulina ama ballame la jibi one rainy evening maqrabka markaasayti oo roob Zahra gabartalanka soo received way bahandhiyay ama helay devastating phone call markaasayti wicitaan handhi oo markaasayti oo markaas degdeg ah handhi Samir markaasayti curriculum kasay had been in way back galay a car accident shilbaa ragalay on his way usugo markaasayti jidka dareer ama usoo jidka saaranyi to visit si usum booqda macna to visit ha si hanbooqda lay usugo hadareero jidka ka dareero maadaama mobile ku qabado way muduna saaxib haayeen waanan xiisi si hanbooqda iyo markaas jidku soo maro shilgali Russian back sadaqsi wadi bankanagati iyo to their hometown magaaladii tii bankanagati had qalbish raised with hope way baka buuhay ama kala yani kelmada raised waa doodo ama dhaxarooro laakiin in this verse way balina had qalbish raised with way markaasay tii buuhay hope rajika buuti but laakiise when madi oo she arrived at the hospitalki Koiti she saw way aragtay a light nalaka aragdi nalkaasaytii oo in his eyes oo hindhooyay la kahayo hindhooyay ka jaran nala hindhooyay ku dhax aragti dadkaasaytii was getting dima si daciifay kulay dadka markii umarna xiliya xaalad degdeg ka jaran isbitaalka jaran nalku wajiga qobado marka way leeshi saw way baka aragtay a light nala in his eyes hindhooyay ka aragdi dadkaasaytii was getting dima si daciifay in those final moments daqiiqadooyinkaasaytii inka dambeeyay Samir curriculum kasay held her hand way gobaday galantiya wameyn gobaday tightly sadakan gobaday whispering usugu kushuk make erayhan whispering kushuk waa toldaha an ka sheegi that no matter any walban kuwidna walban hayna how far about they were siyoga inshal dheerayeen walba inin hayna taasay their love jacelsho will always be strong any wiligi adkaada doonaya in sheegay tears ilamiya streamed down ha ku deedaheen Zahra's face Zahrain dhooshe ama wujishe as she promised iyadoo markaas an ballan qaaday to carry inay ku taxadara doonto his love jacelshay and keep it with her waan iyada la jaro doon jacelshay even hatta as he slipped away sugo dhamaday kelmada slipped waa tarin badow laakiin even as he slipped away sugo dhamaday hatta living way bal noolaitay way bayadal noolaitay with only clear memories xusuus of laughter oo qosole dreams riyooyin and laugh iyo jacayl dadkaasaytii oo time waqtiga cool never erase wilisha intertara doona
She thought iyo wayba ku fikirtay markii meeliya fadhiidi about walka saabsan all the things they could have done together yooga si wada jir ahaan samaysa hanqubsadeen and it made her fikirkaas ama xusuustaasna mayba ka dhikaniye cry kelmadee eeda qalado marka cry layla fadaaysa qaldan error ah gali maygna ka dhikana markaas susugaasaytii cry inay markaasayti ku oohiyaan ka dhikan until ilaa iyo to weep iyada ku baroordaasay zaid ku boorasi weepna baroordo boor zaid ilaa cryna boor layo. She remembered wayba xasuustay all the love dhammaan jacaylkii they had iyo gabeen ama hay sideen xasuustay but laakiinse now hata it was just a memory xusuus lay nagadi. Key vocabulary erayaalka markaas key vocabularies blossoming waa ubax, profound waa dheer ama kala qoto dheer, streamed waa hadiidahow, conquer mayba markaasiti guuleysidow ama wajahow lamadan macnaba, invincible lanjibi korne, bustling waa markaasiti camirno boot, ailing macnaha wayba jirin ama xanuunsan, devastating wayba markaasiti baabi'iyo ama iibiyo tusaale ahaan markii ana balan la ku baxo ama la jibi ama devastating saaso laakiin in the text markii verse aan qaadani devastating call degdeg dima macna badan la kulay dima waa daciifo ama si yaraado, far apart waa shal fogaansho ama shal dheeraado, sleeped waa tariinbadow ama markaasiti lankinis markaasiti tariinbado. اوكي ان شاء الله ويبقى رجاء ان اللي فهمي واستاذ ياسين وصل لهذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.